Iran ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah dawladaha Khaliijka iyadoo lagu soo warramaya qaarkood in ay mar kale wajahayaan duqeymo iyo waliba duulaan hor leh oo ka imaanaya dhinaca wadanka Iran. Ataliska gooda ciidamada dawladda Iran ee Khatamul Anbiya lagu magacaabo ee saldhigaysu yahay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ayaa ka soo saaray war culus xiisadda iyo waliba dagaalka ka taagan gobolka Bariga Dhexe. madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa ka hadlay duqeymihii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqa ka soconaya gobolkaasi. Iran markan ma waxa ay guda gashay dagaal furan oo ka dhan ah dawladdaasi. dawladaha Carabta qaarkoodna waxa ay bilaabeen in ay si weyn u dhaleeceeyaan dawladda Iran iyagoo ku tilmaamay in ay ku sameynayso xadgudub qaar ka mid ah madaxbannaanida wadamada. dagaal culus ayaa ka dhacay gudaha marinka Hormuz taas oo markii labaad ay isku wajaheen ciidamada dawladda Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. dagaalada ayaa lagu soo warramayaa dhinacyadu in ay iswadaarsadeen xiisad culus iyadoo taliska Khatamul Anbiyana ay tafaasiil ka bixiyeen arrintaasi. waxaa si weyn u bilaabmay baa layidhi duqeymaha uu Mareykanka ka fulinayo gudaha dalka Iran kuwaasi oo ka dhacay gobolada koonfureed iyo waliba bartamaha dalka Iran iyo deegaanada ku dhow caasimadda wadanka Tehran. weerarada ayaa lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Samnan iyo xarumo kale oo ku yaala gobolka Khoristan, Hormizgan iyo Sistan iyo sidoo kale Bulistan. halka difaacyada cirka ee Iran ay la sheegay inay si firfircoon uga jawaabeen duqeymaha dawladda Mareykanku ay sameyseen ay ku qaado aagagaasi. dhinaca kale ciidamada qalabka sida ee wadanka Iran iyo ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda ayaa sheegay in ay jawaab ahaan weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn maanta ugu qaadeen saldhigyada Mareykanka ee ku yaala 3 wadan oo kamid ah kuwa Carabta sida Bahrain, Urdun iyo sidoo kale wadanka Kuwait. halkaas oo la sheegay ciidamada dawladda Iiraaniyiintu maanta si adag inay u garaaceen. iskoorimaadka ayaa sidoo kale ku soo beegmay iyadoo xiisad xoogan ay ka taagan tahay marinka Hormuz oo muhiim u ah ganacsiga saliidda adduunka taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo in colaadda ay ku sii fido gobolka oo dhan. inkasta oo labada dhinac uu sii xoogaysanayo colaadda u dhaxaysa mas'uuliyiinta Iiraaniyiintu waxay cadeeyeen in albaabka wada hadallada iyo xalinta khilaafaadka ee dhinaca diblomaasiyadda uusan ahayn weli mid xiran iyadoo ay muujinayaan diyaargarow xoog leh oo ku aadan halkaasi waxa ka taagan. dhinaca kale ciidamada Centcom ee Mareykanka iyo kuwa Iiraaniyiintu waxa ay dagaal aad u culus ku dhaxmaray gudaha marinka Hormuz kadib markii dawladda Iran ay bilowday halkaasi dhaqdhaqaaqyo military in ay ka sameeyaan. israasaynta kadib labada dhinac ayaa dib u kala gurtay sida ay ku warramayaan warbaahinta gobolka Bariga Dhexe. taliska ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ee wadaaga ah ee Khatamul Anbiya ee saldhigaysu yahay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran ayaa waxa ay soo saareen war ka dhana dawladda Mareykanka oo la xiriira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo waliba marinka Hormuz. taliska dhexe ee ciidamada Iran ee Khatamul Anbiya ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin baalidi in Mareykanka uu faragelin ku sameeyo arrimaha la xiriira marinka Hormuz iyo sidoo kale deegaanada kale arrintaas oo ay ku tilmaameen qadcas oo aan la ogolaan karin in loo dhawaado sida ay doodooda u dhigeen. bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu yiri haddii Washington ay fuliso hanjabaadaha ku aadan duqeynta kaabayaasha muhiimka ah ee Iran in ay ciidamada Iiraaniyiintu ay bartilmaameedsan doonaan kaabayaasha kale ee muhiimka u ah wadamada dawladda Mareykanku ay saaxiibada yihiin kuwaasi oo hadda wajahaya duqeymihii ugu dambeeyay. bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay haddii Washington ay fuliso hanjabaadaha ku aadan duqeynta kaabayaasha muhiimka ee Iran in ciidamada Iiraaniyiintu ay cashar u dhigi doonaan dalalka saaxiibka la dawladda Washington. sidoo kale talisku waxa uu carabka ku adkeeyay tilaabooyinka ay qaadi doonaan inaysan noqon doonin oo kaliya jawaab u dhigan weerarada Mareykanka balse ay noqon doonaan weerar xoogan oo ka ballaaran isla markaana burbur aad u weyn gaarsiin karaysa baa layidhi dhinacyada ee ka soo horjeeda dawladdaasi. dhinaca kale ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iiraaniyiintu waxa ay ka hadleen duqeymihii ugu dambeeyay
ee maanta dhacay iyo arrinta marinka Hormuz iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay la galeen. ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran ayaa shaaciyay in dib loo furi doono marinka Hormuz kaliya haddii Mareykanka uu joojiyo weerarada ay ku wadaan gudaha Iran iyo guud ahaanba gobolka. afayeen u hadlay ciidamada ilaalada islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay furitaanka marinka Hormuz inuu shardi u yahay in la soo afjaro duulaanada iyo weerarada ciidamada Mareykanka isagoo xusay inta weeraradu ay socdaan in aan la aqbali doonin tallaabo kasta oo lagu furayo marinkaasi istiraatiijiga. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo xoogeysanayaan iska horimaadyada militariga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iran isla markaana Hormuz ay noqotay xudunta weerarka iyo waliba dhinacyadan isweydaarsiga isku haya dagaalada xaaladihii ugu dambeeyay. wasiirka dagaalka ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dowladda Iran ay la kulmi doonto casharo adag oo dagaal haddii aysan baaliri xaaladda dagaalka aysan wax weyn iska bedeleen. wasiirka difaaca waxa uu la sheegay inuu Katz la wadaagay faahfaahinta militariga ee ka socota wadanka Iran. Katz waa wasiirka dagaalka ee nidaamka Israa'iiliyiinta. xafiiska wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dhigiisa wadanka Mareykanka uu qadka taleefanka kula xiriiray dhigiisa aan ilaahdee dagaalka ee Israa'iil ee Katz isagoo la wadaagay warbixin ku saabsan howlgallada militariga ee Mareykanku ay ka wadaan gudaha wadanka Iran. sida bayaanka lagu sheegay waxay labada dhinac u sharaxeen Mareykanka howlgallada Israa'iil ay ka wada gobolka iyadoo la sheegay in ay ka dhan yihiin baaliri waxa Israa'iil ugu yeertay kooxo argagixiso oo ku sugan gudaha Syria magaalada go'doonka ah ee Gaza iyo sidoo kale dhulka Lebanon. xafiiska wasiirka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Katz uu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay go'an tahay baaliri in ay si joogto ah u sii ballaariso dagaalkaasi oo ay doonayso in ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka sameeyaan dagaalka. marka la eego xaaladda dagaalka ee war degdega ayaa dhinaca kale Iran ka soo baxaya hadda oo ku saabsan arrimahan dagaalka iyo waliba sida ay wax u socdaan. afayeenka ciidanka Iran ee guud ayaa hadal soo saaray waxna uu sheegay in dalkooda uu awood u leeyahay inuu si buuxda u xakameeyo Hormuz isagoo ka doolaya dhul kasta oo ka mid ah Iran isla markaana ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan weerarada. waxa uu leeyahay Iran waxay awood u leedahay inay maamusho marinka Hormuz iyagoo adeegsanaya awoodda militariga ee ka baxsan dhammaan dhulka dalka isla markaana aysan ku xirnayn oo kaliya xeebaha ama jasiiradaha Iiraaniyiintu ay leeyihiin in ay duqeymaha laga abaabulo. istiraatiijiyadda Iran ee gacan ku haynta marinkan ayaa waxa ay tahay baa layidhi mid joogto ah oo aan wax isbedela ka iman karayn. marinka Hormuz waa uu sii xornaan doonaa inta Mareykanka uusan aqbalin baa layidhi nidaamka ay Iran sheegtay in ay ku dhisan tahay madax banaanida iyo sharciga. gacan ku haynta istiraatiijiyadda ee marinka Hormuz ayaa noqotay arrin qaran oo ay si weyn dhinacyada hadda loolamaya ay isugu hayaan sida wararka warbaahinta caawa ama aan iraada galabtu ay tabinayaan ay tilmaamayaan. saacadihii la soo dhaafay oo dagaaladu ay aad u cuslaayeen tirada maraakiibta loo ogolaaday inay ka gudbaan marinka Hormuz ayaa waxa ay noqotay tiro aad u yar. telefishinka Al Jazeera oo xiganaya ururka dhaqdhaqaaqa badaha ayaa waxa ay tilmaameen in 13 markab oo kaliya oo kuwa ganacsiga naftada waday ay ka gudbeen marinkaasi Hormuz ilaa iyo shalay. waxaana arrintan ku timid baa layidhi markii dowladda Iran ay u ogolaatay dhaqdhaqaaqaasi. xogayaha guud ee wakaaladda tamarta ee wadanka Iran ayaa ku dhawaaqay duqeymaha dowladda Mareykanku ay ku hayaan gudaha wadankooda inay saameyn ku yeelanayaan kaabayaasha tamarta iyo ilayska dabka ee dadka ay u baahan yihiin iyadoo Mareykanka lagu soo waramayo in uu bilaabo beegsiga duqeymaha kaabayaasha wadankaasi Iran. war Al Jazeera ay qoraysana waxa ay dowladda Imaaraadka Carabtu ay si adag u cambaaraysay weerarada lagu qaaday wadamada Bahrain, Kuwait iyo Urdun. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa war ay soo saartay waxa ay ku tilmaantay in duqeymahaasi ay yihiin kuwa muujinaya tilaabooyin cadowtinimo ah oo halis ku ah
jiritaanka wadamadaasi iyo madax banaanidooda waxaana dowladda Iran loogu baaqay in ay joojiso duqeymahan ay sii ballaarinayaan dowladda Ciraaqna war ay soo saartay waxay ku tilmaantay in ay ka hortagtay diyaarado kuwa iswada ah oo doonaya in lagu weeraro dekadaha nidaamkeedaasi waxaana ay ku tilmaameen tani inay tahay mid aan la aqbali karin oo ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda Kuwait-na waxa ay la tacaalaysaa sida ay hadda wasaaradda taliska ciidamadu ay ku dhawaaqeen ama jeesh al-wadani al-Kuwaiti waxa la yiraahdo ama ciidamada qaranka Iran in ay soo rideen diyaarado kuwa iswada ah isla markaana nidaamyada difaaca hawadu ay hadda sameynayaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay kaga hortagayaan xaaladda hadda ka taagan gobolkaasi ciidanka wadanka Iran waxay leedahay haddii uu Trump uu ku xadgudbo qaanuunkii isfahanka heshiiskii lagu gaaray dalka Pakistan caasimadda Islamabad waxay arintani noqon doontaa mid la yaab leh inay la kulmaan afayeenka ciidamada oo goordhow hadlay ayaa tilaabadaasi qaaday waxana uu yiri weeradeena waxaan sidoo kale u bedeli doonaa badweynta Hindiya marka laga soo gudbo inaan badda cas tilaabooyin ka qaadno xiisada gobolku maanta waa sii socotaa dagaaladeena waa sii ballaaranayaan oo meelo kala duwan oo hor leh ayay gaarayaan meelaha xitaa maanta la duqeeyo waxaa ka mid ah Mina Basra halka la yiraahdo oo ku taala gudaha wadanka Ciraaq sida telefishinka Al Jazeera uu goordhow qorayo duqeymaha waa la isweydaarsanaya xaaladdu waa adag tahay Trumpna wali waxa muuqata ciidanka Iran in uu jucsiin la yahay oo xaaladdu ay ka sii darayso ikhaaray waxaan waxay ka soo kordha waynu eegi doonaa iyadoo albaabihii diblomaasiyadda aad moodo in ay sii naxoosayaan